siyaasadda arrimaha gudaha kaba baxdo xuduudaha dalka meeshaas xuduudeena wixii ka baxsan ayaa siyaasadda muxuu ahaay arrimaha dibadda ay ka bilaabataa marka taasi waa sida caadiga ah marka labadu kalama waxaysna kalama xirna kalama go'na cilaaqaad ayay leeyihiin laana siyaasadda arrimaha gudaha sida ay tahay unbaa siyaasadda arrimaha dibaddana ay ka turjumay siyaasadda arrimaha dibadda waxay gadaysaa waxa wanaagga ah ee gudaha ka jiro baahida gudaha ka jirto aragtiyada gudaha ka jirto ayay gadaa wax aan maxaa dalkii shaqo ku lahayn oo gooni ah oo ay gadda ma jirto sidaas daraaddeed annagu Soomaali haddaan nahay khaasatan waxaan annagu gadaynaa u weynaa laba mabda oo ah mabda ah inaan arrimaha dibadda inaan ka gadno siyaasadda arrimaha gudaha ee ka turjumaysa dadka Soomaalidu inay nabad ku wada noolaadaan oo ammaan iyo nabad ay ku wada nool yihiin iyagu iyo inay deriskooda nabad kula noolaadaan iyo inay caalamka nabad kula noolaadaan marka qaybta koobaad oo inaan nabad ku wada noolaana oo wanaag iyo qurux dalkeena ay ka jirsato waa midda koobaad taasaan iibgeynaynaa adduunyadana aydan kula noolaanaynaa dariskeena aydan kula noolaanaynaa laana adduunyada hadda maanta cawlamada noqotay ama carro edegsan noqotay lama kala go'na arrimaha derisyadu kalama go'na waa amnigooda isku xiran dhaqaalahooda isku xiran wax badan isku xiran marka arinta muhiimka ee la gaday waa taas qodobka kale oo noo gaar ahay oo intii aniga aan xafiiska joogay waliba mabda noo ahayd waxay ahayd Soomaaliya inay dibadda cadow ku yeelan waxa la yiraahdo zero enemy outside dibadda inaanan cadow ku yeelanin Soomaali haddaan nahay cidii ayadana cadaawaysanayna sharsanayna dhibaataysanay wixii waa guuri laakiin annagu in aanan abuurin jawi aan colaad iyo cadawtanimo ay nagala dhaxayso dalalka dibadda xuduudaheena ka ama deriskeena aadaan ama gobolka aadaan ama qaaradda ama maxaa caalamka aadaan intaasay bilow ka ahayday iyo waxyaabo kale badan oo dhab ah mabaadida marka laga yimaado istaraatiijiyooyin iyo policies ay jiray lagu dhaqmay oo dalkaani ilaa haddana wali qaarkiis u nool yihiin aad iyo aad u mahadsantiin doodan waxay ku saabsan tahay sidaas aad sheegtay diblomaasiyadda iyo doorashooyinka waxaan ku hormaynaa diblomaasiyadda iyo intii aad xilka haysay iyo kadibba sidii xaalku ahay waxaan rabaa 60 sano ayaa waddanku jira oo xiriirkiisa dibadda hadba uu meel joogay markaas maxaad ka sheegi kartaa marxaladii ugu muhiimsanaa waddankaani marxaladii ugu fiicnaa ee dhinaca xiriirkiisa diblomaasiyadda dibadda uu soo maray intii aad xilka haysay iyo ka hor iyo kadibba maxaad xasuusataa 1 2 3 siyaasadda arrimaha dibadda dal kastaahi taariikh uu leeyahay taariikhdiisaasay ka mid tahay siyaasadiisa arrimaha dibadda annagu taariikh fogaan leenahay taariikhdaasi qarniyaal ka hor ilaa Axmed Gurey waagiisa laga soo bilaabo siyaasadda arrimaha dibadda wayna khuseynayeen marba si un bay noo khuseynayeen waagaas iyo waaqicii jiray ayaa mar walba aan la macaamilaynin xilligii gumaysiga sidoo kale xilligii maxaan ku raadayay xorriyadda aan qaadanay oo dawladnimadeena ay bilaawday jamhuuriyadda koobaad 69 sano ugu horeysay sibay ahayd 22 sano ku xigday si kale ay ahayd 30 sano ka dambeeyay siyaalo kala duwan ayay lafsadeeda ahayd marka siyaasadda arrimaha dibadda ama ha guuleysato ama dib u dhac ku yimaade waxay ka jawaabtaa xilligaas markaas lagu jiro iyo waxa jira caalamku sidoo u nool yahay duruufaha dalka gudihiisa ka jira sida ay yihiin ay mar walba ka turjumaysa marka hal siyaasad dibadeed oo dheer ma jirto waa taariikh dheer oo tixana oo mid walba sideeda in looga hadlo u baahan waayahan dambana siyaabo kala duwan ayaduna ay soo ahayd laba awood waa weyn jirtay adduunka waaso inaad la yiraahdo sidee u saameeyeen xiriirkeena dibadda haddii aan waarso ku tirsanay iyo haddii aan ku tirsanay sidee u saameeyeen xiriirka iyo cilaaqaadka dibadda ee waddanka
sida aan hore u tilmaannay waxa waaye 1960kii markaan xorriyadda qaadanay dal dimuqraadi ah doorashooyin ay ka jiraan dhaqaalihiisu sooqa xorta uu yahay dadkiisu ay boqolkiiba boqol muslimiin yihiin ayaan ahayn siyaasaddeena arrimaha dibaddana mabaadidaas noocaasa ayay badanaa ay ka jawaabaysay waxaan cilaaqaad fiican la lahayn dowladaha aan dhaqankaas wadaagno markaas jiray ee aan dimuqraadiyadda aan wadaagno sooqa xorta aan wadaagno oo waxyaabahaas aan wadaagno o dhan ayaan la lahayn hase yeeshee siyaasaddii berigaas xorriyaddii aan qaadanay ka dhalatay ee dastuurkeennii muxuu ahay iyo siyaasaadkii ugu horreeyey ee dowladdii ugu horreysay ay yeelatay ka mid ahayd ayaa waxay qaabeynayeen siyaasaddeena arrimaha dibadda dowladdeennii dhalatay waxay mabda'iyan ku socotay 60kii sii socodkii xorriyadoonka gobonimo doonka in dalalka soomaalida maqan la soo aruuriyo soomaali weyn in la abuuro soomaalida qowmiyadda soomaalida ee geeska africa ku dhaqan oo dhan hal dowladeed oo soomaaliya la yidhaha in la hoos keeno ay ku wada hoos noolaadaan wax badan aad ayay marka ay u hagaysay siyaasaddeena arrimaha dibadda arrintaas waataan 64tii dagaal la galnay etoobiya waatii 67dii annaga iyo faransiiska aan aad isugu xumaanay oo jabuuti balaayada ka dhacday kasii hor 63dii waataan cilaaqaadka u goynay dowladda ingiriiska arrintii NFD daraaddeed marka siyaasaddeena arrimaha dibadda waxay ka jawaabaysay siyaasaddeennii arrimaha gudaha ee ahayday in la abuuro qowmiyad soomaaliyeed oo ku hoos nool dowlad soomaaliyeed shantii soomaaliyeed midaynteeda markii dhammaatay oo wejigii labaad la galay oo kacaankii uu dhashay 69kii waxaasoo dhan waa la laabay laakiin arrintii soomaali weyn iyo raadinteeda ahayd way sii jirtay markii hore haddaa xasuusataan madaxdeennii allahu naxariista prime minister markuu ahay cabdirashiid cali sharmaarke iyo markii maxaanku idhahday allahu naxariista isaguna uu cigaal oo prime ministerka ahaaba waxaa ka mid ahayd soomaaliya waxaan raadinaynaa dalalka maqan ee soomaalida ah si nabad ah ayaan ku jirinaynaa gacaanka markuu yimiday dalalka maqan ee soomaalida waxaan ku jirinaynaa ayaa isbedeshay oo wax lagu raadinayay oo ku salaysan istaraatiijiyadii taasaa keentay dagaalkii 77 inaan Ethiopia mar labaad la galno ruushkii oo berigaas cilaaqaadkeena oo meesha ugu sarreysa afrika wadamada isugu fiican aan ahayn inaan isweyno kuwa kale cusub oo booski galana waan weynay dagaalkii qaboobay adduunkana waa xoog badnaa marka sidaas ayaa diblomaasiyadeena arrimaha dibadda xoogaa waa taariikhdeena magaan fiirin waxa la yiraahdaa Soomaaliya markastoo ay dagaal gasho military ahaan waa guulaysataa laakiin diblomaasiyad ahaan ayaa looga guulaystaa guusha kama dambaystaana diblomaasiyadda raacda marka diblomaasiyadda siyaasadda arrimaha dibadda sidaasay muhiim u ahayday waagaas xoogaa qalal badan naga galay ruushkii inaan beerdaraynay bedelkiisa aanan helin ilaa wixii ka dhashay ilaa burburkii 90kii loo sababeeyo in ay jireen marka lagu daro siyaasadda arrimaha gudaha ee dagaalkaasi oo kadib ka dhalatay kadib siyaasadda arrimaha dibadda marka ay xasiloon tahay oo degan tahay oo wadamada dariska si nabad ah oo degan wadanka ula nool yahay maxay uga muhiimsan tahay marka wadanku uu ku jiro cilaaqaad xumaado daris loo dagaalo ehelkii loo gooyo maxay siyaasadda dibadda oo degan muhiim u tahay wadamada nooca ah kana loo kala Soomaaliya horta siyaasadda arrimaha dibadda waa saan hor u sheegay mar walba waxay ka jawaabtaa siyaasadda arrimaha gudaha iyo duruufaha dalka markaas ka jira dabcan hoggaanku wuxuu leeyahay raadkiisa institutionska dastuuriga ay jira waxay raadka dhaqanka ummaddu wuxuu leeyahay raadka laakiin siyaasadda iyo duruufta dalka dhexdiisa ka jirta ayaa aad iyo aad saameyn ugu leh waxa dibadda ka jira duruufta iyo waxa dalka gudihiisa ka jira waxaa ka mid ah habdhaqanka hoggaanka iyo dadka hoggaanka haya ma aha kaliya hal qof balaakin institutionska dastuuriga dalka ka jira hoggaankooda iyo sida ay u dhaqmaan qaybay ka tahay shuruucda jirta kuwa xoogan kuwa aan xooganeyn kuwa aan cadcadayn
dastuurku meesha waxyaabo badan horta waxaa jira laakiin waxay tahay labada dhinacba waa laba traffic labada dhinac u socdo waaye haddii siyaasadda gudaha ay degan tahay siyaasadda arrimaha dibadda inay guulaysato ayay u dhowdahay haddii siyaasadda arrimaha gudaha ay guulaysatana waxay dib ugu soo noqotaa arrimihii gudaha oo ay dib u saacidaa haddana in ay dhismaan waa qaacido caadi ah laakiin duruufaheenna annaga dal soo kabanayo ee ka soo baxaya burburka markay tahay siyaasadda arrimaha dibadda aad iyo aaday muhiim noogu tahay laanna soo kabashadaasi ayay qayb weyn ka tahay sidaan u iibgeyno duruufaheenna iyo baahideenna ee gudaha ka jirta adduunyada taariikhiyan waxaa la yidhaahdaa dal sida soomaaliya oo kale burbur ku dhacay dowladda ay ka burburtay ee dowlad fashilantay magaca qaatay ee haddana dib u soo kabtay ee soo galay stageka ama heerka ah dowlad nugul ama fragile state waxaa la yidhaha galay oo keligiis inta dhibaatooyinkaasoo dhan ka baxay istaagay oo cagihiisa isu taagay ma jiraan dal kasta oo duruufahaas ay la soo gudboonaadeen waxaa soo garab istaagay kaalmo caalami ah kaalmadaas caalamigaa mid dalal saaxiibo ah ay siiyeen ha noqoto ama mid multilateral ah oo dalalku isku tegay sida jamciyadda qurumaha ka dhexaysoo kale ay siisay ha noqoto laakiin sida badan dalalka burbur ku dhaca keligood iskuma filna inay soo baxaan annaguna dadkaasaan ka mid nahay marka maadaama aanan annagu isku filnayn oo aan kaalmo caalamiya u baahannahay marka laga yimi baahannahay asal noo ah siyaasad arrimo dibadeed oo aad iyo aad u degan dulqaad badan leh ee furfuran soo dhoweyn iyo qadarin badan leh inaan la nimaadaan u baahannahay oo aan meelo badan siyaasadeenna arrimaha dibaddahi aanay qab iyo maxaanku ihahdaa emotions iyo catifado iyo aanay ku salaysnaanin sidaasaa waxaa lagu heli karaa markaad siyaasaddaada arrimaha dibadda sidaastaa waxaad iibgeyn kartaa baahidaada oo aad u iibgeyn kartaa si lagaaga aqbalo daga ku aqbali karaad helaysaa laakiin markaad kuwana dal aad la dirsan tahay kuwa aan la dirsanayna qofkaan dagaalka ku jira bal u kaadi ay is yidhaahdaan waxaa kugu adkaanaya inaad saaxiibo caalami ah yeelato waxaa kugu adkaanaya inaad kaalmo caalami ah hesho waxaa kugu adkaanaya in faragelinta mideeda xun oo dhibka badanna aad ka badbaado yaa kugu adkaanayso inahaasoo dhan ayaa markaa deganaanta siyaasadda arrimaha dibadda ay muhiim ugu tahay dib u soo kabashada iyo dib u soo noolaashada dal ee ka soo baxaya burburka 4 sano oo muddaxileed ah ayaa waddanka wixii ka ahayd maxaad is leedahay waad ku dartay adiga iyo dowladdaadiiba siyaasadda arrimaha dibadda wal annaga horta inta hadda sheegayo oo principles ah intii aan kari karnay yaan ku shaqaynaynay Soomaaliya inay cadow dibadda zero ay ka ahaato oo cadow dibadeed aanay yeelanin taas waxay naga saaciday inaan dalkan dhexdiisa aan la isku qabqabsanin oo aan quwado ajnabi aan isku dhex diririn waagii 4 sano oo annaga aan joognay dal caalamka ol nala ahay ama annagu aan la ahayn ma jirin oo aan ka ahayn cilaaqaadkeennii Iiraan oon cilaaqaadka u jarnay markaas sababtii aan ugu jarnay sabab cad ay ahayd annaga khilaafaan haysto cadawaan haysto diin noogu soo dugaalay Iiraanna yani tashayuc shiicayn ay dalka ka wadeen raggeedii diblomaasiyiinta ahaa oo magaceeda watay wixii xaqaa'iq cadcadna waa loo hayay in ay dalka ay ka wadeen shiicayn kadibna wadiba waa tashi badan ka galnay hadday yihiin golay wasiirada hadday yihiin baarlamaanka hadday yihiin culamaa u diinka bulshada rayidka dad badan la wadaagnay oo aan u sheegnay keena aan effect galayna sidaas oo ah inta kale khaliijkan maanta is haysto waa saaxiib aan la wada ahayn Saudi Arabia saaxiib aan la ahayn Imaaraat waa la ahayn Qatar waa la ahayn Kuwait waa la ahayn Saudi Arabia cilaaqaadkan meeshii meel ugu fiicneed mudooyinkan dabo dhammo gaaray
ganacsigeena meeshii ugu weyneeduu gaaray 2015 5 milyan oo neef oo xoolaha ayaan Sacuudi Arabia u dhoofinay oon hore u dhicin ka bacdina aanan dhicin yani ganacsiguna wuxuu yimaadaa markii cilaaqaadku hagaagsan yahay meeshan oo Iiraan warbaahinta qaarkeed waxa ay daabacday inaad isku hay weyseen xiriirka Iiraan iyo ka Sacuudiga taas maya sax ma ahan waa run Iiraan iyo Sacuudiga way isqabteen qunsuliyad iyo diblomaasiyad Sacuudiga ay leeyihiin meesha lagu gubay taas de mowqifkeena waa cadaay wixii saxda nagala aan ka aadnay sidoo kale dalal kale oo Yurub Sweden iyo Sacuudiga isqabteen qadiyada isku qabteen